بشير عثمان عود تليها سلديقة قلبي دي قروي كسو دو تياتر برودكشن waxaad dalbatay in aad waxyaabo badan oo muhiim ah aad umada kala hadasho sidaas la ajligeed ayaan anaguna isku daynay inaan fursad ku siino waxyaabaha aad doonayso inaad dadka kala hadasho marka hore ku soo dhawow shirkadda theater waa ku dhawaay shirkadda theater production waa ku dhawaay ana dalbaday in aan dadka la hadlo wax kale feebaan jira horta intaanan hawl kala gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa igu kalifay dadka qaba cudurka aniga hadda aan ka hadlay waxa weey cudurkan ka hadlay waa cudurka HIV/AIDS oo ummadda Soomaaliyeed dadka qaba iyo dadka dawada qaato ayagoo qaba dawada qaata iyo dadan dawada qaadan basan sheedka intuu marayo maxaa kalifay oo dhibka inta la keenay aniga qaabkay igu dhacay waxaan rabaa dadka ummadda Soomaaliyeed la wadaago meel kasta cid kasta af Soomaali ku hadasho inaan la wadaago waxaan rabaa aniga wixii soo gaaray iyo wixii aan arkay iyo intii hadda xanuunka aan la noolaa wixii ma garanaysaa aan la kulmay iyo dadka dhibaataysan oo saasoo kale xanuunka qaba waxyaabaha qofka bilaadanka naftiisa inuu ku kalsoonaan karo si aan ba ugu kalsoonaan inuu taliyaan ahay meel baan joogaa macnaha waxa igu kalifay waxa weeye waxaan arkay wax badan oo dhibaato ah oo geysanaya haddana dan aan laga lahayn oo bulshada inuu ku baraarugsanay wayahay waxaan jeclaan lahaa bal Bashiir ahaan qisada adiga ku soo wajahday iyo waxaad kala kulantay iyo marxaladda aad hadda ku sugan tahay bal sheekadaada inaad guda gashid anigu horta waxaan ku dhashay degmada Afmadow waxaan ku soo koray meel yada Buurdubo baadiyeed ilaa 97 Puntland ba joogo intii ka dambeysay askari baan ahaa marna taliyaan soo noqday mar askari caadi aan ahaa marba meel bay ahayd waan soo koobayaa taariikhdeeda hadda intaasan ku soo koobayaa anigu hadda waxaan ahay taliyaha saldhigga kontaroolka galbeed ee Garowe waxa hadda aan ka hadlayo xanuunkan waxay ugu dhacay 2016 bishii 8 ayaan gabadha guursaday gabadha aniga xanuunkan ka qaaday waxaana iska helay xanuunka 12aad isla sanadkii gudiis marka waxaan rabaa intii ka dambeysay sidii wax u dhaceen inaan maartay warbaahinta la wadaago ummadda Soomaaliyeed ay dhageystaan qofkana waxa fiican in maartay wuxuu u nool yahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa marka marna ma doonayo in aniga wixii soo gaaray digniin inay noqoto kale kuwa hadda qabo kale sidee fursad u heli lahaayeen yaa kala fursad ay ka banaan tahay maxana hadda waxaan aniga tusaalahan haddaan soo qaato dadka qaba xanuunka waxay dhan yihiin 11700 intaynan u guda galin arinta la xiriirta waanada guud iyo waxyaabahan aad doonayso dadka inaad la wadaagtid waxaan rabnaa marka horeysa bal inaan step u galno adiga qisadaada Bashiir ahaan barnaamijkan sidoo ku soo wajahay marka waxaan rabnaa inaan marka hore qisadii Bashiir inaan ka sheekeyno ka bacdina inaan u gudubno arrimaha la xiriira dadka cudurkan qaba iyo waanada guud oo aad umada la doonaysid inaan galno marka hore waxaan noogu bilowdaa arintan gabadha sida isku guursateen marxaladaad wada marteen isbitaalka markii lagu geeyay muxuu ahaa arintii masaajidka aad kala kulantay waxyaabahaas oo dhan sheekadaasi oo si kooban ah oo qurux badan inaan noo bilowday marka haddaan anigu taariikhdeeda ka soo hadlo gabadha waan guursaday waan dhistay waan aroosay magaalada dhinac ka dib adigu muddo 3 bilood markaan qabay ayaa xanuun baan dareemay jirka ah oo nafsiyan oo maartay anigoo maartay cuntadii soo celinayo xanuuno badan baan horta dareemay
haddii xanuunkaas muddo aan sidaa ahaa waxyaaba badanna waan arki jiray oo maaragtay gabadha oo dawo cunaysaan arki jiray marna uma qaadan inay xanuunka iyadu la noosho marna uma qaadan laakiin waxaan u qaatay waxyaabo kale waxbaa igu soo dhici jira kale waxaan arkay maalin baan hataa baaray fiiriyey kaniin baan arkay kaniinka muxuu yahay baan idhi waxay tiri waa xasaasiyadda loo cunaa weligeyna ma arag kaniin aan arkay maayo marnana ma soo dhigan cudurkaanaaba meesha maarta sida macnaha fahan la-aanta uga qabay baan waxyaabaha ay keenay bay ka mid tahay inaan t v imaado soo fadhiisto ummadda islaamka o dhan u sheego haddii sidaa dhacday markii anigu malahaygii waxay noqotay inaan is iraada ma uur bay iska ilaalinaysaa ma wax saasaa jiro arrimo noocaas oo kale xagga dhinaca kale u qaata marna uma qaadan bishii 12aad habeenada ka mid ah ba xanuunkii soo ritay anoo ka maqan gurigii bay gabadhii hal mara guurtay boorsadeedii guriga uga tagtay xanuunkana waa ay hayaa haddii subaxdii aan guriga imid waxaan u imid boorsadeeda keliya guriga taala waa wacay oo maxaa dhacay baan idhi saas arrintaas maxay ku dhacday kelmadday iigu jawaabtay waxay tihi waa waxoogaa hadal baana dhex maray markii hore waxay tihi adiga sidaas waad dhimanaysaa bay tii waad dhimanaysaa waa sumaysan tahay wax adugu hadallo badan baa uma qaadan marka aniga inay maarata xanuunkaas nin baa ila joogay marka ila socday sarkaal asna waan rabnay guriga inaan quraaciyo markaas shaqaana markaa ka tagnay ninkii waxaan ku yidhi niyo hadalkaasi leedahay ma gaarigay wax noogu xirta ma waxbaa jira see waxyaabo kale markaas qalbiga kusoo dhacay markaasuu yidhi niyo hadday saa leedahay inay xanuunkaa qabtaa ninkaa hadalkiisii baa anigu horta waxay geliyey iyo xanuunka i haya oo halkaa laabta iga haya dabadeed waxaa dhacday inaan iska soo tago boorsadeeda meesha ka soo qaatay reer kalaan lahaa reerkii kalaan imid habeenkii si fiican uma seexan waxay maadaama nina hadal igu yiri iyadana hadal igu tiri wixii waan fahmay hataa gaari waxbaan ka baarbaarayna wax ka jiraan kale waa gabadhi xaaska kale waxaan ku yidhi oo caruurta guriga joogtay gabadhan caruur ima hayn waxa dhacday waxaan ku yidhi inay carruurta jirtaan u malaynayaa khayr bay noqonaysaa waxay tiri khayr bay noqonaysaa waxa dhacday subaxdii markuu waaga bariyey oo 9 subaxnimo ay tahay baan anigu tagay isbitaalka ma aqoon meesha la iska baaro waxa dhacday waxaan bixiyay $1 waxaan idhi waxaan rabaa dhiig inaan shuba haddana ninkii dhiigiga qaaday waxaan ku yidhi war xanuunkaasaan iska baaraya dhiig shubadii waxaan u bedelay inaan ninka war xanuunkaasaan iska baaraya iga baarina waayahay wiiro mishinkii wala aad nin garanayuu ahaa dhalinyaro ah wuxuu sameeyey waqtiga igu daahay saan ku soo noqday waan fiiriyey waxa sameynaya ninkaas dhalinyarada dad iga dambeeyay oo dhiig laga qaaday buuraaqii siinaya anigana xoogaa dib ii dhiga waxbaan dareemay marka culaysna halkaa ka jiro ayaan dareemay marka waan u tagay waxaan ku yidhi warniyo nin iimaan kale ama ahiye qof islaam aan ahay wax kastana qadarta rabbina waa kalsoonahay maxaa hadday wax jiraan ma ii sheegtid ana waxaan ku weydiistay waa garanaysaa ina keen biyo gacanta qabtay warqadina gacanta soo ku wada ima dhiibin markaan sii socono oo maartay meesha ajayfiga lagu baaro xagiisu ila dhaqaaqay anagoo soo socono wuxuu yidhi wahal waay marka niyo waxa weeye ilaahay baa wax walba keena waa hadallo maartay dee waa dareemaysaa qofka maartay dejin u ah buu xaggaas waxaan ku yidhi wareedhe horta ii kala caddee beena kuu sheegay maya markii intuuna wax ii sheegin waa baqay waa cabsinay warka markii la qarxiyey iyo markii kale hallaba ii ahayd waxaa dhacday ninkii wuxuu yidhi waa positive waa qabtaa laakiin annaga keenna mid ka casirsan ba halkan yaalla oo laga baaro dadka oo caadi oo xafiis u furan buu leeyahy
iigee baan idhi meeshuu igeeye waa laga qaaday 3 waxyaabood baa lagu qaaday testi ah 3dii waa laga helay dadkii waxaa la yidhi saan weeye u kaadi waa adigu markii maskaxdeeda waxa kusoo degdegtay laba maado gabadhaan magaaladii ku jirtaa habeen hore bay guriga ka tagtay magaaladii weli joogtaa may tegin iyo xaaskii kale labadaas ay ugu soo degdegtay maskaxdeeda kusoo degdegtay laakiin inuu xanuunkaas ku dhacay in kale culayskii fuulay uu ka mid ahaa bas yaa marka wakiil ku abaal dhaha qofka marka ugu horeyso oo maartay cudurka laga helo qof inuu wakiil ka yahay fiican nima ilmaadirna magaalada joogan u yeeray waxaan gabadhina soo qaad xaas kale waa la keenay negative value ilaa cilmigiisa marka waxaa jiray muddo 3 bilooda xaaska markaan guriga imaado xanuun baa iska kaayay xanuunka marka ma garanayo laakiin 3 bilood gabadhan ismaan aragba laakiin intaa qabay dhowr jeer baan is aragnay waxaan niyadda markas iri waa kulley waa in laga helayo negative value 3 bilood ismaan arag gabadhan waxaa dhacday negative markii la yiri gabadhii xaaskaygii carruurta ay dhashay hal kelmad ay tiri kelmadda horta aniga ugu horeyso markii ugu horeyso oo qofka i dejiyey lambar 1 ayada ahayd waxay tiri shirow dadkana ma dhiftid ummaddana dhib uma horseedid wax wanaagsan baadna ka shaqaysaa inta badan intaan kugu aqaan anigu waxaan u malaynayaa bay tiri in ilaahay ku daraan maye isdeji xanuunka aa qabtid aniga meel igama maqno waxa igu soo degay marka qaab si automatic markiiba waxaan xasuustay markii suuradda ooraysa nabi maxamed lagu soo dejiyey iqra lagu soo dejiyey ayaa waxaan xasuustay kelmaddii qadiijo ku tiri bas salaad sunnaa tukaday waxaan sameeyey gabadhii waan iska diray anigu waxaan sameeyey marka warqad message oo fariina baan u diray gabadhii xanuunka la haygu ritay markaan u diray waa meesha keliya maskaxdeedan ka shaqaysay meesha keliya oon gabadhaas ku qaban kara weeye asr waxaa dhacday gabadhii message baan u diray message markaan u diray waxay tiri waxaan idhi lacagti meherka ahayd baan ku hayaa lamarkaadanu sahal ma leh ayadoo caddaanaan gacanta ku haya xaggee kugu imaadaan inaan qabto qorshayga wuxuu ahaa inaan qabto saa ujeedkayga marka dee waad garanaysaa qof wax ku cusub yihiin anima fadhiyo inkastoo iimaankayga iyo caadi xaaladayda caadi tahay haddana maantii hata xoogaan seexan jira ma seexan waxay tiri galabta isukaaya keen halkaa iyo halkaa okay baan weliba waxaan kaa rabaa bay tiri lambarka sahal ima leh inaad sahal ii furtid waa yahay baan idhi waan soo tegey gaari baan soo kaxaystay askari baan soo kaxaystay si iyadoo maarata nooc ciidan la diriray markii aragtay gaarigii soo gashayba warqaddii furinka waa haystaa soo ma ahaa ina keen saan usii wada stationka dhexaan ku tuuro stationka markaan soo geliyay waxaa iyadaa kelmadda igala horta waxay tahay halkaa maxaa noo soo gelisay anna waxaan idhi maxaa xanuunkaa igu ridda saa markaas gacan bay ku jirtaa moogta ma aniga way naxday way isbedeshay si aad bay isu bedeshay waxyaaba aan ka soo dhaafin way jirtaa markii aan xanuunsanay xanuun ba ahay halkaa iga haya laabta aan oran jiray way ilmeyn jirtay maxaa yeelay markii hore way guursanaysay oo aniga aan guursanayo ismayl ahayn macnaha waxyaaba ku jiray baa iska bedelay inay qalad ku jirtay dareensaneyd gabadhaas raas waxaan oran jiray ma mulkumeedkiyaa lagu sheegay maxaad la ilmeynaysaa meeshii markaan adi aan gudaha soo geliyey oobiga waxaa la rabaa wax lagu geliyo qofka laiskama xiri karo qofka dee maxaad ku dacweynaysaa bali anigu marka h f iyo aids midna ma kala qaana war aids bay nagu riday gabadhaana xiraan qabta kii qalinka hayaaba intu tuurayba orda ninkii rabay inuu wax qoro
bashiiro ma adag kugu dhaca ma adag kugu dhacay dadku way garanayaan dee sarkaal inta badan aad meesha looga yaqaan banaa askartii qaban lahaydna nin walba farow ka taagay cabaar ka bacdi baa raggii baa u yeeray warkaalaya eriyo waa la yimid oobigaa la geliyey magaalada waa iga sii horreysay marka waxa koowaad bayd dadkii aniga markii hore xanuunka iga baareen waxay yidhahdeen adaad u doorle inaad qarsatid iyo inaad faafiso aday ku taallaa ani marka waxaan ku yidhi anigu marnaba wax la wax qaran la yidhahda oon qaranayo ma jiraan laba maadaama u qaranayn anigu tuutaan u xirnaa wax kastoo dhacaya oo dalka ummadda soomaaliyeed oo dhan wixii xaggeeda ka imaanayo anigu tuutaan u xirnaa mid kalena way jirtaayo waxaan anu qalad iguma imaan guur buu igu yimid markii hore ayaan go-aanka anigu sii qaata marka arrintidaasay ahayd waxaa loo yeeray dad ayada baara waaa aniga laga helay lakin iyada lagama helin weli maogta oo markaas iyadu may qirsanayd inay xanuunkan qabto ma qirsano waxaa loo yeeray dad ayada baara iyadoo station ku jirtaa waxaa loo yeeray dhakhaatiir way baareen waa laga helay c i d dii iyo dadkii waraysanaya baa u yimid waxay tiri anigu ma qabin isagaa igu riday tiri marka hore kelmaddaa markay tiri ayaa waxaan idhi war aniga waxaan arkayay anigu meel kalena ma marin dee meelo kaluna iga imaan kara waa suurtagal gabadha warkeede laakiin waxaan arkaan idin sheegaya markhaati ah boorsadeeda kaniin baa ka buuxaani ana weligay arag way diidda marka guriga inay sheegto xaafaddii ay ku degtay maadaama aniga magaalada iga tagtay gurigay ku degtay inay sheegto lambarkeedii ayaa qofka u dambeeyey ay wacdo baan wacnaa lambarkaa magaranaysa ha anay la joogtaa gabadha anay la nosho gabadhii marka waxaan idhi boorsadeeda ma taalla haa si aniga marka aana shaki loo gelin oo aan loo oran waxaa sidaasay taa waxaan u diray dad askar iyo dhakhaatiir isku jirto baan idhi boorsada soo qaaday gebigeeda waa la soo qaaday waxaa la keenay saldhigga way joogaan marka raggii maalintaas weliba waxbaa laga duubay laakiin anigu macnaha waan diiday markaas in gabadhaas ayadoo lagu xadgudbo boorsadeeda iyadaa gacanteeda ku furtay sakaniin baalku wuxuu leeyahay laba nooc weeye nooc waxaa jira habeenkii keliya la laqo oo qofka markuu ageka ugu horreeyaya ageka labaad markuu galana habeenkii iyo maalintii habeenkii iyo subaxdii baa la laqaa noocaa marka habeenkii maalintii la laqo bay iyada cunaysa oo darajada koowaad ka gudubtay kii labaad darajada koowaad kii labaad bay maraysa waa qofka gogooye u badanta inta badan waxaa dhacday maxaa kuu kalifaalay inaad inkirtid kelmadda waxay tiri anigu dee waa is adkaynayay tiri adigu warkii oo dhamaystiran waa laga duubay goormuu kugu dhacaalaya waktigaas ma yaa ogaa oo dadkiina ehelkaa yaa ogaa gabar walaashay keliya ayaa mas-uuliga ahayd bay tiri og oo magaaladaas ku nool inu magaalada inaan sheego ma rabo oo dadka aan wacyigelinay ka mid yihiin dadka magaalada lafteeda degan wixii waa igu dhaceen moogta wax colaad aan u hayana ma jirto de waa magaalo dadka soomaliya ka mid ah waxaa dhacday aniga waxaan la hadlay aabaheed gabadha aabaheed baan la hadlay waxaan ku yidhi xanuunkaasi gabadha la nooshay ana xanuunka baa igu dhacay maalintii ugu horreysana adaan ku weydiistay gabadhaada waxaan igu tiri geel abaar waktigaas jilaal aad adag buu ahaa ninkii garanayaa garanaya waktigaas geel etoobiya loo sii wado oo halkaasoo maarata xoogaa ka da-een maarata baan sii wadaaya dee allah isku kin qayr u yiri ma ogeyn bi adeer laakiin wuxuu yidhi adeer hadday gabadheedi sidaas yeeshay warka waan helay inay qabtay garawana ku xidhan tahay laba maado adaa u door leh dee inaad waajibkaada ka gudanaysid gacantaaday ku jirtaay iyo inaan magtaada ku siiyo yidhi waajibkaa ka gudanayso aad tooganaysid waa tooganayso midhaa ka wadaa adi soo doona hau qaata isaga marka adeer waxaan ku yidhi haddaadna ogeyn waxna kulama jiraan anigu magna ma rabo xoolo kalena ma rabo saacaddan laga bilaabo gabadhana cafis bay iga tahay laakiin sidii waddada aan usoo marin lahayn keliyaan falankeeda qabanaya waxaa jirtay marka gabadha waxaa u yimid oo wax ka qoray c i d da
maxkamadda si hawshaas maaragtay waxa laysku raacay oo inta badan maxkamadda toos looma geyn gabadha laakiin waxaa laysku raacay qofka noocaas oo kale ah oo sidaa yeelaya oo isagoo xanuunkii qaba noocaa samaynaya waa qof diluu la mid yahay hala togto marka maxkamaddii iyo c I d dii ani maadaama waxba iga soo go-ay waxaan is idhi gabadhan xaaskaada is noqotay amarkaana waa dhacay mana soo noqonayo kow wax kalena way jiraan oo dee wax marka culays oo isaaran maadaama ilaahay xaas kale ii fiyoobeeyey aan caafimaad ahay carruurteyda caafimaad yihiin sidii kaleo aniga aan wax loo dabaalan karan loo dabaasha lakin gabadhan inaan cafi xag ilahay ka cafiya aan waxba loo raacan bes warqad baan qoray saldhigana waa dhigay c I d dana waa siiyey maxkamaddana waa siiyey adigu rag igula taltaliya way jiraan waxyaabo kale oo hadda aanan ka sheekeyn karin dad kale oo soo weeraray gabadha way jireen oo faamilka ah oo dumar u badan yidhi oo inay dilaan rabay anigu marka waxaan sameeyey gabadhii gaari baan ku daray ilaa iyo muddaan la socdo si ay magaalada waddanka uga baxdaba markaan gaariga ku daray intay meesha ku jirto hawshaan dhamaynayana biilkeeda iyo waxeedana meeshaan ugu geyn jiray horta anigu sidaas horta igu dhaca marka aan kugu sii daray waan gudagala wixii marka arrintii baan sii gudagala waxa weeye dawadii baan u qaataa waa dareemaysaa nin buko boqol kuu talisa baa la yihahdaa waxaa la yidhahdaa xagga lagaaga duceeyey xagga saas ahayd iyo kana saas ahayd iyo caano geel cab iyo kaadi geel cab iyo adigu hawsha waa badanaysaa mogta horta qof ka biskooday ma haysaan baan idhahdaa dad badan baa waxay yidhahdaan markay cayilaan xoogaa dawada cunaan bay anigu waa iga baxa ninkan waan kusoo baaraya baan dhaha waxaad ku biskootay baan rabaa markii arrimahaas ay kaa xalismeen kadib maxaa go-aan ah oo nafsiyan ah aad qaadatay adiga waxaan horta go-aan qaatay inaan shaqada ka tago dhinac kale inaan u rogo shaqada aan ka tago dee diinta barashadeeda iyo hawsha iyo inaan halkaa iska aado laakiin aanan arrintan ciidamanimada iska daayo halkaa ka baxo taliyihii booliiska markaa joogay iyo saraakiishii markaa joogtay ama qayb ha ahaato ama cid kalaba ha noqotee waxay ugula taliyeen inaanan shaqada ka tegin haddaad tala naga maqlayso annaga taladeeda qaadanaysana ka tegi misid baale shaqadaada joog weliba taliyaha booliiska waa magacaabaya ereg nin la yihahdo ahaa wuxuu yidhi aniga lacag haddan aan ku siiyo jeebka kaa siina ma hayo kama tegi kadhi shaqadaada waad haynaysaa inta anigu aan joogana waad joogaysaa kuwii ka dambeeyeyna sidoo kale yidhahdeen iyo kuwa hadda joogaba shaqadii sidii baan u haystaa meeshii saldhigii aan u joogaa uga shaqeeya haddaan waxaa leeyahay haddaan wax hagaajiyaba marka waxaa jiray aniga markaa talooyinkii ugu dhashay waxay ahaayeen dee waa lagu talinayaa dad baa kugu imaanayo kuwaa miyi kaaga imaanayo kuwa magaalo kaaga imaanayo waxaa la yihahdaa idaha hilibkooda la cunaa xaggaa laga laabtaa marka aniga wixi o dhan intaan joojiyey baan dawadaysi toos u qaata waxa koowaad oon samey taas ahayd waxa labaadna ilaahay ii keenay baa isku xiro qof kasta haddaan arka hadda laba nin gabar iyo wiil wada socdo waxaan idhahdaa war horta isbaara intiina meel aadin macnaha su-aalaha koowaad aan samey maxaa dhacaysa xanuunkaas aan la noolay dadku way yaabaan waxay yidhahan ninkaan buuran oo noocaana beentiis way taasaan sameeyey wacyigelintaas iyo inaan ilaah isku xiro marka labaad waa soo xajiyey xajkii baan tegey sanadkii dhawaa sanadka haddaan sanad ka horreeyey 2000 iyo maxaan ku rahdaa 18 marka alxamdulilah rabb alcaalamiin intii ka dambeysay hal maraan isbaaray baaritaankayga waxaa la yidhahdaa wax intaa ka yar kolley dee ma hadda ma haye istaatidii markay sameeyaa waa wax daciifa ay ugu jiraan hay wuu nusqaamo wuu yaraada waxaa keenayana wax stress iguma jiraan inaan qof kale caawiyo oo anigan aan maaragtay wacyigelin iyo u sameeyo ma ahane wax aniga nafsiyan marka dadka markay wareystaan waxaan idhahdaa war xanuun ka warreeyaa markii hore xanuunsanaa baan idhahdaa hadda macnaha intuuna xanuunka igu dhicin iyo hadda
markii hore aan xanuunsanaa ee hadda waa caafimaad qabaa maxaa yeelay wax badan baa ii siyaaday waxaa diinta xaggeeda salaada soonka aad baan maartay halkaa ugu fiicnaa caqabado ma jiraan intaad hawshan aad ku jirtay wax caqabado ah oo aad haye maxaa ka mid ah way jiraan 3 caqabadood baan horta garanayaa